madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo wali ku guda jira booqashadiisa uu ku yimid dalkani Kenya ayaa kulan ballaaran la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya waxaana kulanka ujeedkiisu uu ahaa soo dhaweyn loo sameeyay madaxweynaha iyo in laga qayb qaato caawinta dadka abaartu ay saameysay kulanka oo ka dhacay hotelka uu madaxweynuhu ka degan yahay magaalada Nairobi waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale iyo sidoo kale madax ka socotay dawladda Kenya waxaana ugu horeyn hadal ka jeediyay danjiraha dawladda Soomaaliya oo u fadhiya dalkani Kenya kana mid ah wasiirada magacaaban Jamaal Maxamed Xasan iyo Aadan Barre Ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya waan ku garab istaagaynaa waan ku hiilinaynaa ilaahan ku barweynaa inuu xalka ilaahay ku fududeeyo waa xil adag waa wadan burburay waa wadan rabo dib loo soo dhiso marka waxaan leenahay ilaahay ku fududeeyo waxaan halka joognaa taakulayn iyo ururin dhaqaale aan u ururinay dadka abaaruhu saameeyeen dad badan ayaa lacag bixiyay inta kale aan wali wax bixin waxaan ka codsanaynaa inay iyagoo meesha fadhiya ay la xiriiraan MC-ga waxay ku tabarucaan inay bixiyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo kulanka khudbad dheer ka jeediyay ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen dhigiisa dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo muhiimadda ay siinayso dawladdiisu waxyaabahaasi ay ka wada hadleen waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo dawladda Kenya iyo madaxweynahooda iyo shacabkooda sida diiran oo wanaagsan oo runtii anaga iyo wafdigeen naloo soo dhaweeyay runtii waxa meeshaas ka muuqata inay diyaar u yihiin in la furo page cusub oo ku dhisan mutual interest and equal footing macnaheedu waxay tahay dad isxushmeeya runtiina diyaar u ah inay wada shaqeeyaan ku wada shaqeystaan iyagoo danaha dalkooda eegaya maslaxadda dalalkooda eegaya inaan isku soo dhaweyno maslaxadeena oo ay ka mid tahay inaan furno xiriirkii isweydaarsiga dhaqaalaha inaan furno taasi waxay keentay madaxweynihii shalay aniga isaga inaan press conference sameynay uu ballan qaaday in uu furo diyaaradihii isaga gooshayay tooska maxaan ku raahdaa ay ahaan jirtay xamar iyo Nairobi in dib loo soo celiyo waa ka xumahay dadka reer Wajeer waxa laga yaabaa xoogaa economic hardship inuu ku dhaco laakiin runtii dadkii Soomaaliyeed waa rafaadeen maxaa yeelay waxay mareen agony bay mareen iyo dib bay mareen inay soo maraan Wajeer ayna maraan the same process ee maraan markay yimaadaan Nairobi marka taasi waxay fududeynaysaa isu socodka iyo ganacsiga labada dal madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa baaq u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay taageeraan dawladda Soomaaliya iyo in ay ka qayb qaataan gargaarka loo fidinayo dadka abaaraysan ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow dal aan dhaqaale lahayn ma shaqeyn karo anigu waxaan la imaanayaa amaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yiraahdo Denmark yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta ganacsatada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dawladda taageeraan waxaan ka codsanayaa walaalayaalow aan isu gurmano aan iscaawino dadkan baaba'ay Soomaaliyeed oo abaaruhu haligeen oo dhibaateeyeen oo xoolaha ka dhameeyeen waxaan ka codsanaynaa jeebabkeen u furno qof walba uu awoodi karo uu ku tawarruco xasan sheekh Umar Home Cable TV Nairobi